الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا ونكسن خيرتنا الداون السيد الانتيمبا halkan waa telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV oo ka dhigtaan bartaan internetka kulana YouTube-ka iyo shaashada telefishinka guud ahaan aad ka dhahan kartaan Somaliland. warkan habeenimo ee Bulsho TV-na waxaad ila socodsiin doontaan anigoo Sarkiin Jaafar Xaaji Bashiir. qodobadan habeenkan caawa warkaan idinku haynana waxaa kamid ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa ku amaanay telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV sidii tooska ahayd uu tabinayay ciyaarihii ka socday xarunta gobolada galbeedka Somaliland Stadium Xaaji Daahir Boorama. soddon xubnood oo kamid ah golaha dhexe xisbiga kulmiye ee gobolka Hawd ayaa taageero weyn u muujiyay musharaxa Muuse Biixi Yunis. munaasabad sabootin ah oo lagu maamuusayay xulka gobolada bariga Somaliland ayaa loogu qabtay isla xaruntii martigelisay xulkaasi ee magaalada Burco. intaas daawada waa qaar kamid ah qodobada warkeena ugu door karoonle. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dheehan doontaan nus saaca soo socda ee balse marka hore qadaradayga bulshada. bishaaro dadweyne wadikuna bil khair dhaha dugsiga Ileys Camud oo ah dugsigii ugu horeeyay ee bilowba waxbarashada dadka waaweyn ayaa waxa uu dib kugu furay inuu qaadanayo waxbarashada dadka waaweyn. haddaba dugsiga Ileys Camud ayaa waxa uu ka kooban yahay dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sare oo la dhigto gelinka hore. haddaba kaale oo sanad kaliya wax ka soo baro dugsiga Ileys Camud kana soo bax adigoo aqoon heer sare leh. haddaba dugsiga Ileys Camud aan ku tilmaamay waxa uu qorax ka dhaca ka xiga dugsiga Galbeedi. wixii faahfaahinaya inta dheeraada kala soo xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga buuqda. fadlan balantan waa dugsiga Ileys Camud. kulanti wacan wanaagsan markala daawadayaal iyo qodobadii warkeeniyo oo fidsan. soddon xubnood oo kamid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee gobolka Hawd ayaa taageero weyn u muujiyay musharaxnimada Muuse Biixi Yunis. faafahinta qodobkaasna waxay noo eegayaan wariyaheenna inooga soo waramo gobolka Hawd. munaasabadan oo si ballaaran loo soo agaasimo oo lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa beesha degta gobolka Hawd waxay taageero mugle ugu muujiyeen musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye. iyadoona intay munaasabadaasi socotay lagu soo bandhigay 30 xubnood oo kamid ah golaha dhexe ee deegaankaasi ugu jira xisbiga kulmiye. ugu horreynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Maxamed Ibraahin Aadan Qabo iyo xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye Xasan Siciid Yuusuf oo iyagu faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedada munaasabadan ay qabteen. markale mudane gudoomiye mudane musharax waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan ku faanaya oo aan maanta si weyn ugu faraxsanahay in halkaas ay maanta ka soo taliyo oo ay si buuxda taageeradaada iyo guddiyaal codkaaga xubnaha golaha deegaanka golaha dhexe xisbiga kulmiye ugu jira beesha ballaaran ee degta gobolada waa shan gobol. laakiin xaaladda aynu maanta ku jirno waxaynu u baahan lahay nin experience u leh qarankan oo inaga talaabiya waxaynu higsanayno oo koow ka yahay dadku ictiraaf un bay eegaan wax la ictiraafki cid keenaysa ictiraafki waxayna mashquuliyay waa local politics internal problem keena ayaa aad u badan. ninka kulmiye la kowsaday ee imika ku cusub ama la bilaabay dawladdan cusub ama bartankii ka soo booday waa inaynu u fiirsanaa ma eegayna CV waxaynu eegaynaa work experience ka qofkaynu eegaynaa kaasaynu ku tixgelinaynaa kaasaynu ku dooranaynaa. waan yara kaftamayaa oo wax waliba waxaa jira wax la yidhahdo jin arag iyo waraabo la hadal iyo beelaha Somaliland hadday tahay harti hadday tahay sabaroon hadday tahay isaaq reer waliba waraabo la hadal iyo jin arag buu leeyahay. isaaq jin aragiisu waa arabka weyn. sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay hoggaanka sare xisbul xaakimka kulmiye iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo salaadiin kuwaas oo dhammaantoodba taageeray musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye iyagoo sidoo kalena farriimo kala duwan u jeediyay murashaxiinta kale ee ka tartamaysa xisbigaasi. midnimada xisbigeenu ilaalinayna
tartan nadiifa baynu gelaynaa xisbi maxaanku dhahdaye sharciyadiisaynu ilaalinaynaa sharciyadda xisbigu ku qabsoomayaa haddii gudoomiyaha laga helo inaan xisbiga si ahaan egnay waxaan baa jirtay oo wadan iyo baa laga sheegaya lagu leeyahay haddaan idinka adkaan xisbiga si ahaan muuse biixa haddi waxaan u soo jeedinayaa oo aan leeyahay sidii aanu madaxweyne maxamed axmed siinaaya u dhisnay ayaanu adigana kuu dhisaynaa tana waxa aan leeyahay suldaan halkii adigu haddaad tuurtay muuse biixi halkii aad ku duurtay anigoo suldaan araba ayaa ka qaatay gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi oo uga mahad celiyey munaasabada ballaadhan ay ku taageereen dadweynaha ku dhaqan gobolka hawd musharaxnimadiisa gudoomiye muuse biixi cabdi oo isagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi maantana qaranisku maynoo badana inagu ku banaameeleen hoosta ka ciyaaro iyo xagxabeesho dhexdeena waa ka fognahay oo arrinteedu way ka dheertay arrintan maanta joogta xisbiga maanta xisbiga xilweyn baa saaran talada dalku hayaa waa xisbigu weynaa laba waajib baa laga rabaa mid waxa weeye inuu xisbiga bara dimuqraadiyadda iyo dooda iyo sida loo xakameeyo haddan la socdaa talabaadna waxaa saaran xilkii qaranka oo aynu qaranka ilaaliyo midnimadiisa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa tasaxaadna waxa weeye da-yarta iyo ummadda aanintay kulmiye ee codku wadaa siisay ee maanta la garab taagay waxay ka rajeynayaan mustaqbalka inuu ka fikiro oo u hogaamiyo intaas aynoo wadana xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa fariin u diray wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Somaliland fariintaas oo ku aadan qaabkii looga reebay ciyaaraha gobolada xulkii kubadda cagta ee gobolka Maroodi Jeex uga ciyaarayay qaybtiisa magaalada Boorama oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa gabi ahaanba ku gacan saydhay go'aankii ay hore u soo saareen xidhiidhka kubadda cagta ee Somaliland Shiina Jaamac Rooble isku duwaha ciyaaraha ee gobolka Maroodi Jeex Maxamed Maxamuud Maxamed Diri dhaba tababaraha xulka gobolka Maroodi Jeex iyo xildhibaan Ismaaciil Cagayare oo si wada jira warfidiyeenka ula hadlay waxa ay sheegeen inaanay gabi ahaanba aqbalaynin go'aanka ay soo saareen gudidani waxaan u malaynayaa kaloonka markaan tagnay waxa ayna siiyeen wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo sports waxay noo soo gudbisay intaanaan ciyaaraha la qaban sharciyadii meel laba kama taalo in haddii rabash koox lagu sameeyo kooxdii dhibcaha la siin lahaa ay ku soo qoreen dawaa annaga oo gobolka Maroodi Jeex gobolka Maroodi Jeexna aayar uun dhibcihii baan ka qaadnay iyagoo waliba iskhilaafsan oo TV-ga marna ay ka tiri wasaaraddu waa hal iyo hal marna ay ka tiri saddexdii dhibcood baan ka laalay taana media weyn ku daawanay waxa taa waxa ay sii raacdaa in bogobogaadho ayaa la geliyay warbaahinta bogobogaadhada la geliyay waxa weeye ciyaartooyga gobolka Maroodi Jeex baa dagaalamay ciyaartooyga gobolka Maroodi Jeex iyaga la dagaalamay anagu haddii aanu dhib geysanay gobolkayga Maroodi Jeex cid baa la calaamadin lahaa oo la ganaaxi lahaa indhihiina horta markiina hore warbaahinta bal u fiirsada cidda nabarka geysatay ee wax dhibta samaysay ee siidwalaha dishay ciyaartooyga lambarka afraad u qaatay gobolka Awdal Buha waxaan warbaahinta aan marinaa in ciyaartooyga gobolka Maroodi Jeex ay ku dhacday cadaalad darro oo guud ahaanba aynu ognahay waxa dadka loo sheegay warbaahinta la marina aanay waxba ka jirin waxaanu jecelahay inaanu dul istaagno xaaladda guud ee ka dhacday Boorame annagoo ah maamulkii gobolka Maroodi Jeex waxa jirta in ciyaartu ku dhamaatay hal iyo eber isla markaana in ciyaartooy kamid ah ciyaartooyga gobolka Maroodi Jeex oo ah ciyaaryahan Guji oo ah laacibkayga isagoo kubadda daadaysinayo in ay barbar cararayeen ciyaaryahan kamid ah ciyaartooyga gobolka Awdal isla markaana ciyaartooygaasi khaladkuna oo ahaa in lagu gafay ciyaartooyga Guji oo kubadda uu watay u dhacay isla markaana garsooriye dhexe ee ciyaartane uu yiri ciyaarta socoto waxaan ognahay in calanwalihii koowaad intuu soo cararay oo ayuu awoodii garsooraha dhexe uu lahaa uu qabsaday isla markaana uu tilmaamay rigoore adduunka lama arag ciyaartooy la faawalo oo isaga rigoore lagu qabto waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba dheeraacayna go'aankan naga yimid garsooraha sportska iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo gudida qarankaba iyo madaxda qaranka uu sheegayna in dhalinyarada gobolka Maroodi Jeex
aan la duusin xuquuqdooda ee hoos loo eego dacwadooda xiriirka kubadda cagta wuu bareeray garsooraha calanka awoodda lahaana waa laga qaaday awooddiisii calan wala awooddan fuliyey lama arag caalamka meel calan wale oo isagu waxa weeye go'aanka arday ka qalin jabisay maxadka Daarul Xikma ayee barashada Qur'aanka Kariimka ah ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada Boorama faafahinta qodobkaasna waxay noo eegaya waryaheena Shacay Maxamed Kaahin xafladda qalin jabinta xifdinta Qur'aanka Kariimka ee Daarul Xikma ayaa maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee markiskaasi halkaas oo ay ka soo qayb galeen waalidiin waxgarad ganacsato iyo uqaal waxa ugu horeyntii madashaasi ka hadlay maamulaha markiska Daarul Xikma Sheekh Mawlid Farax Raage waxaana uu yiri ama markaasi waxa weeyaan xifdigii Qur'aanka Kariimka ah qoladii xifdiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna u fududeeyay kuwaas oo ahaa kuwa loo soo xidhay iskuuladii oo dhigan jiray waxa weeye Qur'aanka oo kaliya kuwaas oo waliba sharaf gaar ah leh waalidiintii markaasi garatay ee fahmay Qur'aanka inaana waxba laga horeysiin karin ilaa ay xifdiyaan kuwaasi waxaan soo jeedinayaa mahadnaq aad iyo aad u ballaaran oo waxa weeyaan waa waalidiinta kale waxay dheer yihiin waxay ka adkaysteen markaasi waxa weeyaan labadii ahayd xaggana iskuulka ha dhigto xaggana maganasa waxa weeyaan Qur'aanka ha tago tiibay ka adkaysteen meel kaliya iyo iskugu biyashubteen meel iskugu biyashubta meeshii ugu fiicnado kalaam rabbil caalamiin sidoo kale intii munaasabadani qalin jabinta xifdinta Qur'aanka Kariimka lagu guda jiray waxa ayaguna hadal ka soo jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay waxaana yiraahdeen anu mahadnaqaynaa madrasatu Daarul Xikma iyo alqaayimiin calayha mudiirkeeda iyo macallimiinteeda dhammaantood oo markaa juhdi fara badan oo dadaal fara badan geliyay ardaydaas markaa maanta midhaha ay soo baxay ee kitaabka la xifdiyay fajazaahumullahu khayral jazaa ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal fara badan iyo ajar fara badan ka siiyo oo ha ku karaameeyo macnaa waxa weeyaan karaamo dhammaystiran يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maalintaas oo anfacaya khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu nabiga alayhi salatu wassalaam waxa idinku khayr badan midka Qur'aanka barta dabadeedna isna sii baradadka ee gudbiya waxaan maanta maamuusana على وجه الأرض كتاب يوفى من بطنه أو قرآن marka labada marka la isku daro waxa weeyi waxa isla maxay soo bixi maray waxa la tilmaami karo waxa xaflada saas oo kala oo qalbigeena aad ugu weyn waxa weeyaan quluubteenu taximu ilayhi ayna kitaabka ilaahay Allah xafido ay u ololeyso xaqiiqatan kuma haana kitaabku waa kitaabka quraanki waa waxa ka duwanahay makhluuqaadka kale ka duwanahay waxa uu qaalisan hanti lagu bixiyo fikrad lagu bixiyo dadaal lagu bixiyo awlaad waa qaafacaya marka waxa weeyaan inaan maskaxdeena u soo jeedino awlaada inaan wax barno wax la barano waxa uu qaalisan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala kitaabka ilaahay wax ka qaalisan ma jiro laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun culimada inoo soo dhameysay marka sharaf iyo cizi waxa laga helayaa quraanka kariimka دمدا يغالي عاشو وحلقه ليا كتاب القرآن الكريم كان بشارة إلى وكو بشارين ولا قدام وحلقه ليا كتاب القرآن الكريم لكن روحان آد إمك وقفر حسنا يعني ذكر المكان دولكين الله يرسل مالي وكلامك جيل كيرير السنة وحبراني إلهي خير يدسيو لكن هو حكم مغضى سوق الجوكتا يوحي يقولك كدعي مالمان هكون ملمنة أنا هذه إذا أردت روح كلامها ليا ذكر حفاظة إن أنا كل ملمن سمت رجع فريسان يا جدارة عبد دراجة استجاب وجس هلي هاي بهاش الله يرضى حشيشك بيده إرباطه اللي يسكون مدو
lagu sumoobo kiniiniyaasha la qaato ee dadka caqliga ka qaada bal iska badaa wax kale ee lagu caqli beelo iyo aayatiin aan lahayn aan la falgelina aan la saaxiibina quraan ma xafidin aqoon kale ma dhiganin khadkay ka dhaceen ama aan dhalo ama dad kale ha dhalaan ama balaayo kale ha dhasho dadka noocaasa nimayo ka leh rag iyo dumar khayrna allah idin waafaja khayrka ilaahay idin waafajeen ilaahay ay idinku sii wado guntiga gabagabadii xafladan qalinjabinta qur-aanka kariimka markii ay soo idlaatay ayaa 8 arday dhamaystay xifdinta qur-aanka kariimka waxaa la guddoonsiiyay shahaadooyin sidoo kalena waxaa madashaasi ku sugnaa waalidkii dhalay ardaydani oo fooladeynayay ardaydan sidoo kalena jawaayis guddoonsiinayay waa Shucayb Maxamed Kaan Shucaybiga telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan loo halka nagala socotaan waa Bulsha TV Boorame qodobada kale naga soo gaaray gobolada iyo degmooyinka dalkana waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo ay weheliyaan saraakiil ka socota wasaaraddiisu oo ilaa tan iyo maalintii shalay socdaal hawleed ku joogay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa maanta soo maray isla markaasina soo indheeyay ceelasha biyo soo saarka ee Tubaar iyo Faradeero wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo booqashadiisaasi ku wehelinayeen maayirka magaalada Berbera maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ayaa intii ay socdaalkoodaasi ku jireen waxay soo indheeyeen xaaladda biyo soo saarka ceelashaasi iyo waxa ay u baahan yihiin markaas hamin baa laga sameeyaa halkan iyo meesha la yiraahdo Faradeeraba si biyo badan oo inta ka fara badan loogu helo magaalada waxaan rajaynaynaa sidii maayir kuba sheegay sanadkan waqtigan jiilaalka dambe insha Allah inaynu biyo inta ka badan helo toddobadan ceelal ayba dhaqso u dhamaadaan oo wax soo kordhiyaan sahaminta dambana muddo sanad ay ku qorshaysan tahay laakiin sanad ka hor dhamaataba waa rajaynaynaa ka bacdina ceelal cusub laga qodi doonaa meeshii ay ku arkaan in biyo ka soo kordhi karaan مدن وسير وحن عاد كوسول ويننا دقمة بربرة مشروعي بلعنا أها بيه بلعرنتا أما يده بهيم إنه قبته مقالة بربري بيها صابته ومقالة حابات بيه هذا وحلقة بسده إنه دوقنا هاي 4 مليون أو ناف وكبدا تذكرون المقالة ده يا مراكب تايمان الساعة يا اسمها مقالة أو بلعرنا الساعة runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ay noo bilaabmaan sahankii biyaha sidii looga doon lahaa biyahan maanta ay haysato biyo ka badan wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac ayaa maalintii shalay la kulmay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ujeedada koowaad waxa weeye mashruuca biyo balaarinta Berbera inaan dhagax dhigno ama bilowno talabaadna inaan wakaaladda kormeerno iyo sida ay u shaqeyso iyo hawsheedu soo u socoto iyo baahiyaha biyaha magaalada ka jira iyo meeshii laga dabooli karo labada arrimood way safarka iyagu halkan waxaan ugu nimi ama horeba waan uga sheegay telefishinka ku tiri kuteen iyo ishaacaad la leeyahay wakaaladda biyaha Berbera waxaa laga dhigayaa private ama dad ganacsatada baa lagu wareejinayaa arrinka waxa la wax ka jiraan ma jiraan habeen iyo maalin toonna lagamana wada hadlin lagamana fikirin Maxamed Cali Dhuux telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera daawadayaal inta waxaa noogu dhamaaday qodobadii aan idinka hayna dalka gudihiisa haatan u diyaar garooba qodobada kale aan idinka hayna daafaha caalamka qareenka matalaya qoyska madaxweynihii hore la dilay Burkina Faso Thomas Sankara ayaa sheegay in baaritaanka lagu sameeyay haraaga meydkii uu muujiyay in rasaas la dhacay qareenka ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof haatan lagu eedeeyay dilka Master Sankara kaas oo loo dilay intii uu socday afgambigii dalkaasi ka dhacay 1987 waxa loo yaqaanay inuu yahay Juwakavara Afrikada qoyska ayaa waxa ay sugayaan in tijaabooyinka lagu sameeyo dhiigga hidde-sidaha ay xaqiijin doonaan in meydku yahay midkii Master Sankara ku dhawaad 30 sano kadib geeridiisa ayaa Thomas Sankara waxa uu wali caan ka yahay gudaha dalka Afrika
sawiradiisa ayaa la sheegay inay wali ku xadhan yihiin funaanadaha la xidho qaar kamid ah siyaasiyiinta garabka bidix Afrika ayaa waxa ay xirtaan koofiyada cascas si ay u weyneeyaan qoyskiisa ayaa muddadaasi oo dhan waxa ay sugayaan in la baaro sababaha uu u dhintay Sangara maadaama ninka xilka laga tuuray ee Blaise Compaoré uusan ogolaanin in la abaaro meydka ninkaasi hase yeeshee Master Compaoré ayaa la fahantiisa waxa uu sanadkii la soo dhaafay xilka looga tuuray kacdoonkii caan baxay ayadoo qaar kamid ah dadka lagu eedeeyay dilka Master Sangara ay xubin ka ahaayeen ilaalada madaxtooyada Master Compaoré Nima Umar Hussein Bulsha TV wakiilo gudoomiyayaasha guddiga Yurub ayaa jooga dalka Turkiga si ay u dhiirigeliyaan dawladda Turkiga inay saxiixdo qorshe wax looga qabanayo dhibaatooyinka qaxootiga badankooda yimaada qaaradda Yurub ayaa waxa ay soo maraan dalka Turkiga laakiin Turkiga ayaa weydiisanaya si ay ula shaqeyso midowga Yurub waxyaabo dhowr ah oo ay kamid yihiin waxayna doonayaan in loo sahlo fiiso la'aan in dadkeegu ay ku yimaadaan wadamada qaaradda Yurub iyo in laga wada hadlo qorshe ay ku doonayso in laga sameeyo meel amaan ah waqooyiga Suuriya oo ay qaxootigu joogi karaan waxa habeenkii xalay markii ugu horeysay dood telefishinka loogu qabtay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee doorashada 2016 ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka shanta musharax ee loolanka ugu jira musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee talada dalka haya ayaa waxa kamid ah xogayihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton oo iyadoo hadda hogaaminaysa loolanka ka dhex socda xisbiga dimuqraadiga waxa sidoo kale kamid ah musharaxiinta dimuqraadiga Senator Bernie oo muddooyinkii ugu dambeeyay taageero xor leh ku yeeshay dalka Mareykanka isagoo ku xiga Hillary Clinton saddexda musharax ee kale ayaa iyaguna si weyn taageero aan u haysan kuwaasi oo kale ah Martin Malay, Tim Webb iyo waliba Lincoln Chief haddaba doodii uu habeenkii xalay uu telefishinka CNN u qabtay musharaxiinta oo ka dhacday Las Vegas ayaa waxa si weyn hogaanka ugu hayay labada musharax ee u taageerada badan Hillary Clinton iyo waliba Master Bernie oo labaduba muujiyay kalsooni aad u weyn halka waxay noogu dhamaaday war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray warkan habeenimo ee Bulsha TV-na waxay idila socodsiinaysay anigoo Nasrakiin Jaafar Xaaji Bashiir hadii Allah wada lahayd moohitaan dib ugu kulmi doono warkeenan warka xiga waxaan idinku dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh